sidee noloshaada looga saari karaa caadooyinka xunxun? Miyaad mar walba isku dayday inaad iska joojiso caado xun, laakiin aad dareentay inay kugu adag tahay? Runtu waxay tahay, isku day keliya ma ahan xal, laakiin waa bilow wanaagsan. Waxaad u baahan tahay fahmid iyo qorshe. Ka bilow inaad aqoonsato caadada xun xumaanteeda. Ma tahay inaad baraha bulshada waqtigaaga ku lumiso, ama aad balwad qabatinto, ama aad samayso ficil maskaxdaada dhaawacaya? Markaad garato xumaanta shayga, waxaad awoodaa inaad ku beddesho mid ka wanaagsan. Marka xiga, samee tallaabooyin yaryar oo joogto ah. Ha isku dayin inaad hal maalin ku joojiso wax walba. Ka fogow waxyaabaha kicinaya ama caadada xun ku xasuusinaya, oo ku beddel wax ka wanaagsan. Tusaale, halkii aad sigaar cabbi lahayd, cab biyo ama cun khudaar. Isku day inaad maskaxdaada tababarto. Markay rabto waxa xun, weydii naftaada, tani faa'iido ma ii leedahay? Haddii jawaabtu maya tahay, ka dooro ficil kale oo caafimaad leh. Ugu dambeyntii, ku joogtee dulqaad iyo samir. Isbeddelka caadooyinka xunxun ma dhaco hal maalin, laakiin maalin kasta oo aad dadaasho, waxaad arki doontaa horumar weyn. Xakamaynta caadooyinka xunxun waxay kaa dhigtaa qof caafimaad qaba, maskax ahaan iyo jidh ahaanba. Bilow maanta, ha sugin waqti kale.